السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. kusoo dhawaada channelkayga Zainab Cali. sideetiin xaaladiina caafimaadkiintu ma fiicnidiin? alxamdulilah anaka waa fiicanahay. maanta sidaa hordhac usoo aragteen rootigaasaa sameysaneynaa insha allah. dabka saliidaa soo saartay hilib shishiid mise dooro malaay waxaa rabtidaa ku sameysanee. hilibka waxyar soo shiila ilaa uu biyaha ka gursanayo. xawaaji isku dardar waxyaraa kasoo isticmaale. haddaa ilmahaada oo basasha iyo waxaas cunayaan kuwa basalaa ku bilaabe. aniga ma cunaan, that's why saliid iyo hilibka iskugu bilaabe. markay si fiican usoo karto maxaa kusoo darsanaa yaanyo, basal, kabsar, toona isku soo shiide. wixiina hadday ka dhex muuqdaan ma cunayaan, that's why usoo shiide. hadday kuwaada ku cunayaan well and good ha soo shiidin. saaseeto basasha ugu bilaaw. yaanyo shishiid hal qaad camal ah kusoo dare. intaana isdhexgelinaa si fiican inay u karto. waa rootigan wuu fudud yahay. suugada iyo burkan habeenkii sameyste sababtoo salaadii ma ka gaari. habeenkii aad suugadaada sameysane iyo cajiintan habeenkii xashane. salaad maxaa waay foornada le ku tuure. markay yaanyada soo bislaatay ayadoo dhacaan yar haysato, dhacaanka dhan maka dhameynin, waxaa kusoo daray baradho. baradhadaasay ku kare. wabilaahi towfiiq. hadaa rabtid barbarooni waxaada kor ugu darsanee. meeshaas maxaa ku haystaa bur qiyaasteyda, baking powder, sokor, qamiir, cusbo, caano booro iyo hal xabo ukun. intaasaa si fiican isku dhexgelinaya. baking powderga muxuu kaa caawinaa burka suuf camal jileec uu ka dhigaa. markaas intaasaa isku soo qase. maxaa soo isticmaalay hal koob oo caanaa kusoo qasanaa. hal koob way igu filnaatay ani qiyaasteedii. qof walba qiyaastiisi. marka isku dadartid waa ujeediin wax bur ma ku daraayo. burka inuu jilacsanaado waaye, gacantaada ku dhadhigo. markaaseeto si fiicana u xashee. xoogaada maka xasdeedid. taqriiban 15 daqiiqo ka badan waa xashaaya burkan. si fiican miiska intaa usoo tirtire miiska ku daadiye. markaas si fiican usoo cajiime. si kal iyo laaba usoo cajiime. soo hadhow rootiga wuu kuu quruxsanaanaa. wax walba bur laga sameeyan gacantaada ku xirantahay qasitaantaada. haddaa qasitaanta u dadaashid waa kaas. baaquliga saliid yara soo marsade. burkeyga kusoo waa kaas. burka soo liisho u yahay qurux. saliid yara korka ka barina, baca ku daboola. wabilaahi towfiiq. shaqadiisi way dhamaatay. markaa biri salaada insha allah. qamiirkan ha iskaga badanin maadaama oo burka bur baryaayo oo yahay oo habeenkii aad qasaysid. qamiir far iyo suulle haddaa ku badisid waaga asigoo baryinoo soo qamiiraa. markaas waa kan hadda saa ujeediin si muxuu usoo qamiire macquul gal ah. meeshan suugadeeda xale aa karsanaye kusoo shubte iyo cheese soo hoole. cheeska hadaa rabtid waa kaa, hadaa rabina muhiim aho. inkastoo ilmaha cheeska aaday u karinee maasha allah ma laga sheekeyn karo. bes saxankaa soo qaatay rootiga gelinayo. waa saliidaa mariye iyo bur yaraa ku daadiyey. rootiga kuuskuus yaraa usoo jaree. rootiga waa ujeedaa jileec. burka haddaa si fiican u qastid u xashtid markaa xitaa aa karinaysid ma ku dhibaayo. fidiskiisa xitaa waa ku raaxaysane. bat haddaa burka adkaysid fidiskana wuu ku dhibaa. maxaa la qaab darana wuu kaa noqonaa. hal qaado ilaa 2 qaado si fiican u buuxinaa maadaama ilmo yar aa siisanayo. cheeskana waa uu roonaane. haddii cheese rabina qasab mooho. haddii cunaana ugu dar way fiican tahay. markaas rootiga saan ugu sameynaa. kulli saasa usoo lalaaba. waxaa la tartiibaan u lalaabay. rootiga zaaid u jilacsan si fiicanna waa u fidinay. qafiifa ka dhigay si hadhow gudaha hilib iyo wax ka yeelanin. afkana si fiican ugu xiray marka koow. sababtoo hadhow cheeska markuu dhalaalo qudaarta iyo hilibkii dhan banaankay soo bixi. haddaa afka si fiican ugu daboolin. mindiyaa soo qaadanay. nooc alla nooca rabtida u sameysan kartaa. rootiga noocyo badanaa jirto insha allah waa soo gelina intaa ka gaaro. markaas muhiimad waxaa afkaas ugu dhuujinaa. mujeedida afkaas suugada wax ugu shubtay si fiican ugu dhuuji.
haddii kale foornada markay gaarto ee gasho wixii dhan wuu soo daadanaa ileen jiiskii wuu dhalaalaa hadhowna khasaarey kugu noqonee maraxna waaye. markaasaan fidiska u bilaabana foornadeedi way ii shidantay kor iyo hoosaa u shidaa marka kow marka aa gilin rabana kor waa dimina hoos bisaa shidaa. waa ujeediin rootigsaan quruxda badan oo soo baxe mar labaadoona soo qamiire ukun korna ka marinin waxaas kusoo shubay caano yar iyo saliid yar tifiqle saliida berbera qurux badan gaduud kalar qurux badanay siinee ukuna hadaa rabtina waa ku darsanay ani ukun ma ku darin waa kusoo qasay bad kor ukun ma ka marinaay saliid yar iyo caano intaas isku soo qasay waa marmarine saani sheegan foornada way ii shidantay marka koow burka xashiisid wiliga burq foorno qabow oo foornada kulaanin bur ha iska gelinin foornada kullee si fiican kor iyo hoos u kullee markaa gelin rabtina hoos bis u shid hoos markay gaduudato ee bislaato koraa haddan u shidee kor wax yaree kugu qaadanee waxaana ku karinee foornooyinka isku mid ma ahan bat ani maxaa u kariye 180 degrees ku kariye 180 hoos bis hoos markay karte koraa u gediye u shida haddana kulli haddaa isku wada shidid foornooyin qaarna kulli waa la isku wada shidi karaa bat ani ma jecel waxaa jeclay tartiibkeeda inay hoos kasoo karto markay hoos si fiican u gaduudato inaa kor geliyo sheekada rootiga meeshaasay ku dhamaatay foornadaada gashanee maanta maxaa u sameynayaa cananaas frinjeerka kasoo bixiyay baraf waaye cananaas iyo cambo xabad cambo iyo cananaas iyo waxyar sokor intaas iskugu soo shiiday bis labana intaan ii qaadanay mid yariis mid weyntan maxay raadeen marraba biinta qaadanayada biinta u qase labadaana fruitkaana u sameeyay maadaama ay rooti tahay waxaa maanta cabitaan ku sii shaaha ka nastaan ilmaha wax mar walba markay qaataan way ku caajisayaan bini aadan waay sida aad wax uga caajistay uga caajisay maalin walba wax lee loo basareeyaa waa kan rootiga sidaan quruxda badan oo soo baxay waa ujeedin hoos ugu gaduudatay korna maasha Allah qurux kala arag isku noqdo kor iyo hoos isku ekaadeen jilaac caraf hadaa maxaan iga iloobay vanilla waa ku daray markaa qasaay hadaa vanilla haysanin macalish maxaa ku darsan kartaa heela soo tuman kartaa inkastoo heel ilmaha afkee kaga galayaan soo vanillagaas wax dhaamo malahan heel waxaa la vanilla iyadoo biyo noocyo badan jirto mis iyadoo budad ana iyadoo budada haysta waa kas rootiga sidaas u jilacsan u quruxsan caraf jilaac ilmahaadana simple way cunayaan wax nafaqadooda u dheeli tirantahay waaye maasha Allah ma diidayaan markaas qof walba meeshiisa uu soo gelinaa cabitaankooda u diyaariyay biyahooda waa u diyaariyay maxaa ugu duwaa aluminium foilka bacdaas ugu duwaa sababtoo rootiga wuu ka qaboobaa hadduu ka qaboowana hadhow ma fiicno bacdaas ugu duwa qof walba lunch boxka u gelinee tomaatadoodan geeska ugu shubay tomaatada ku dhex shubin meel yar hataa daabac gooni ugu xiri karto ugu xir hadhow si ugu dadaartaan laakiin hadda iskugu dhex dartid way qalale waa kaas maanta maxaan siinaa fruitada u haayo canaba maanta ugu shubaa qof walba halihiis yar oo canabka oo hadhow afka ku dhanaansado fruitadan ilmaha zaaid ugu fiicantay immuunka kor ugu qaadee waa isku ogtiin meeshan waxaa loo bari ka bacdi waa la xanuunsanaa markaas ilaahay kana iska xifdiya qof walba saasa u soo dhameena boorsooyinkooda ugu gelinaa wax walba waxaan la ilaa meeshan hadda ila soo gaartay fadlan waxaan iga codsanaa subscribe dadka videoga way daawadaan way ka tagaan 80% dadka daawadaan ma oo dad subscribe ii saare please waxaa kaa codsanaa subscribe ii saar like share asxaabtaada la wadaag waa kaas intaa video kale kusoo kulmeyno waxaan iga tagaa fi amaanillah caafimaad insha Allah cunug walba saana u sameynay boorsooyinkooda u gelinay hadhow waa kaas si fiican cuntada kugu cunayaan videogan hadda rootigan maasha Allah si fiican u soo cunay hal qof jab soo celiyo ma lahan maalin walba ilmaha cuntada loo kala bedelo wixii ayakan way cunayaan mana ka caajisayaan wayna korayaan ilmo kale wax barash ku jira koriinkooda iska yare laakiin inta la dadaali karo waa la dadaalaa qof walba oo hooyo garabkeeda Ilaaha galo
ilmahan ammaano waaye, ammaanada sideeta in loogu soo baxo. Dadka awlaad haysanin, awlaad baariyaal oo saalixiin caafimaad qabaan, kuwii adduun iyo aakhira anfacaan ilaahay ha siiyo. Anakan ilaaha noo xifdiyo, garabkeen ilaahana la galo. Fi amaanillah, bye bye.